kulanti wacan daawadayaal war degdeg ah oo hadda na soo gaaray qarax ismidaamin ah oo goordhow ka dhacay bariiray warar kala duwan ayaa ka soo baxay qarax ismidaamin ah oo goordhow ka dhacay gudaha deegaankaasi bariiray ee gobolka Shabeellaha Hoose qaraxani ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxo oo watay ruux naftiisa liga ah kaas oo lala beegsaday saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaankaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku darayo in qaraxa kadib uu xigay weerar toos ah ay soo qaadeen dagaalyahanada al-shabaab sida ay inoo sheegeen ila deegaankaasi ku sugan waxaana hadda socda dagaal u dhaxeeya ciidamada militariga Soomaaliya iyo raggii weerarkaasi soo qaado ma cadda wali inta uu leeyahay khasaaraha uu ka dhashay qaraxaasi weerarkaasi wixii soo kordho kala soo qaran joog news si aad wararkani ula socotaan subscribe noo saar gamaleelkana fursi uu ku soo gaaro wararkii u dambeeyay ee degdeg ah mahadsan daawada